in ka badan 15 sano oo ay Soomaaliland la saacana xukumaysay waxay joogtaa qoostii ugu dambeysay Muuse Biixi Cabdi waxa uu isugu keenay furimaha dagaalka ee magaalada Laascaano wixii ciidan ay dhisaysay Soomaaliland 30 sano ilaa ciidankii waardiyeynay xarumaha maamulka Soomaaliland oo halkaas laga soo dadguray dagaalka kontanka maalin jirsaday ayaa Soomaaliland waxay ku weyday Laascaano ay Soomaaliland u ahayd magaalo muhiim ah magaalo istiraatiiji ah magaalo ay joogaan 80% ciidamadii Soomaaliland waxaana dagaalkaasi ay sababtiisa ka dambeysay Soomaaliland shacabka isdifaacaya reer Laascaano ay Soomaaliland maamulkeeda u bixiyeen magacyo kala duwan oo ay ka mid tahay argagixiso Soomaaliland inta dagaalkani uu socday waxay ku weyday 50% hoggaanka ciidamada Soomaaliland ee Laascaano ka dagaalamayay waxay sidoo kale ku weyday Laascaano oo ahayd dhul muhiim ah Soomaaliland waxa dhaawac weyn oo soo gaaray go'aankii maamulka Soomaaliland ay 30 sano soo wadeen waxa loo diiwaan galiyay dambiyo dagaal oo ciidamada Soomaaliland ay Laascaano ka geysteen iyagoo aan gabi ahaanba u aabayeeleen magaalada oo markaas ku garaacay hubka ka mamnuuca ah magaalada reer Laascaano waxay muujiyeen kacdoon shacab oo awood badan waxay ka hortageen oo ay darbaaxad dhanka dagaalka gaarsiiyeen ciidamadii hoggaanka u hayay Muuse Biixi Cabdi intii ay Laascaano dagaalada ka socdeen Soomaaliland waxay beegsatay birimageyadii reer Laascaano waana cadeyn kale oo markaas laga dheeganayo in maamulka Soomaaliland uu yahay mid kol horeba ku guuldareystay qabsashada magaalada muhiimka ah ee Laascaano furimaha dagaalka ee Laascaano waxa laga dareemayaa diyaar garowyo culus oo dhinacyada ah haba ugu darnaato Soomaaliland waxaana madaxtooyada Soomaaliland laga warinayaa in markaas dagaal culus ay u diyaar garoobayaan kaasoo ay ku doonayaan in magaalada ay kula wareegaan idoo ay Laascaano ku sugan yihiin ismada dhaqanka ee ka soo jeeda koonfurta dalka oo markaas halkaas u tagay in ay markaas xal nabadeed ka soo jeediyaan xaaladda magaalada Laascaano taasi oo sidoo kale dhabar jab dhanka qadiyad ahaan markaas u keenaysa dooda Soomaaliland ee markaas ah in kol horeba ay ka goosteen Soomaaliya iyadoo Soomaaliland ay doonayso in dhexda ka jabiso nabadeynta ismada dhaqanka ee markaas ka yimaada koonfurta dalka kol horeba waxa fashilmay dhexdhexaadinta iyo markaas baaqi nabadeed ay soo jeesay dowladda Itoobiya kaasi oo ahaa markaas in ay markaas xabad joojin u sameeyaan labada dhinac ee ku dagaalamaya magaalada Laascaano asaate Soomaaliland ayaa sidoo kale dhankeeda cadeynaysa in markaas ay iyadu tahay tan mar walba dagaalka soo qaada sidoo kalena ku guuldareysata